حتى حيوانات كرسولك صلى الله عليه وسلم وتري جري رسولك وأنا حريص بدنا صحابتي سنة وحو أمري جري ومدي إن حيوانات كالله نحريسته قصوين كوحا كم إذا حيوانات كان حريستي نبي قونا حريسان جري ده بعد يسمع عن كم إذا وكل رقم جري وحا كم إذا حديث عبد الله بن جعفر وورينا يوحوا لي رسولك صلى الله عليه وسلم أي مال ما كم إذا نافكي وصارنا أيو قداشي سإساري أردفني وإفنجلي النبي صلى الله عليه وسلم قداشي سوساري مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم دكته وحو إيساري بيقول ور يا خبر أنا عيدنا وشيقين النبي وحو صلى الله عليه وسلم وركاسي وقرصده wuxuu ugu jeclaa buu markuu xaajadiisa gudanayo waxuu isku asturo geedaha timirta iyo beerahaasi inuu dhex galo ama hadaf shay inuu muxuu isku qariyo jeclaan jiray maalmaha kamida ayuu marka wuxuu galay buuri beer geeda waaweyn oo beerihii ansaareed kamida ansaar beeraheedii mid kamid uu nabigu galay sallallahu alayhi wasallam markuu beertii dhex galay ayuu wuxuu ugu tagay neef geela neef geel ugu tagay rati markuu arkay geel ratigii markuu nabiga arkay sallallahu alayhi wasallam ayuu markaa fajarjar waa codeeyay waa ololay indhihiisana waa ilmeeyeen waa neefkii geel ahaa waa ilmeeyay waana sawdeeyay markaasaa wuxuu yidhi rasuulku sallallahu alayhi wasallam meeshan tawaada ah iyo halkanuu ka masaxay gacantuu ka mariyay nabigu sallallahu alayhi wasallam markaasuu neefkii geela wuu xasilay يعني وحوي أولكي يقيلدي يو المدي يوحي وجداي مركز النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب الجبل ورنيف كان يا إسكالي نيف كان يا إسكالي يا إسكالي ها نيف كان بالنبي صلى الله عليه وسلم نيف كان جيلا يا لها رسولك صلوات ربي والسلام عليه مركز ويل دان يرى وري أنصاريد أيا يمد مركز وحور يا رسول الله أنيقا إسكالي نيف كان أنيقا لها مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله يا ميادا إلهي أقبقين بهائمتا أن هلين إلهي كو قعنقلي كم الكسيي ماذا إلهي أقبق ديد بكوير إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه وحو إيشيك تيبو إيقا دعوودي رتقني أما نيف كان قيلي وحو إيقا دعوودي إن آد يعني وحو يقاتيسيسو وضن عمتكو في لنسينين ميدا لبادنا إنا داليسو رفاديسو وحو سنقادي كرين إيو أدكو هايسانا وإيشيك يبو النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي قينا صلوات ربي والسلام عليه معجزات كيكسي كاميدا هايد مرمركا قاركود قيدها لها اللي تشري إيا جمادات مرمركا حيوانات كاسا لها اللي تشري هذا الكثالة وو فهمي جري النبي صلى الله عليه وسلم marka ratiga wuu fahmay nabigu inuu dacwo yahay markaasuu kiilaha intuu yeedhay sida ka daaneefka uga naxariisto sidaasi ilaahay ba gacanta ku galiyay sidaas rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam ibn abi shaybi ahmed iyo abu daawud ba wariyay muslim sidoo kale laakiin qisada jamalku kuma jirto riwaayada muslim marka la nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa kamid ah naxariistiisi uu yaani xayawaanaadka kale ugu naxariisan jiray shimbiraha sidoo kale يعني حيوانات كإن لدبوا وأوجنا حريسان شري النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعيد بن جبير وحوليه هي ابن عمر باوحو صامري نمن دل يرى أو ريق قريشيرة أو إنتي الشمبير مال كحرين أما الشمبير مال دجان توجنا يو كتوك لسنا يو توك تكبرني مركزها وحوي نيكي الشمبير تإسكالها وحي أوسم وحي لهذين يعني جانيتان كستون لقف نوحبات كل هذا shimbir baa marka meesha la dhigay waa la tooganaya marka waa lagu toog dhiganay waa lagu toog baranaya ibn umar baa marka soo maray marka ibn umar arkeen abdullah ibn umar saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam kamid aha markay arkeen bay kala carareen dhalinyaradii markaas ibn umar wuxuu yiri man fa'ala hada la'ana allah man fa'ala hada wariya sidan yeelay la'nadii ha ku dhacday ya sidan yeelay la'nadii ha ku dhacday wuxuu yiri inna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam la'ana man ittakhadha shay'an fihi ar-ruhu gharadan nabigu sallallahu alayhi wasallam waa lacnaday ruux kasta oo waxna fi ku jirto ka dhigta hadaf uu toogto wax lagu toog dhisto lagu toog barto noole ruuxii ka dhigtay lacnada ilaahay ku dhacdo nabigu waa lacnaday buu sallallahu alayhi wasallam marka yaani wax way waa noole waa shimbir naf ba ku jirta inaad ku ciyaartood ciyaar ka dhigato aad toogtoogatood rafaadiso maya ilaahay xikmad buu abuuray hadii la intifaacsanayo meesheeda way
haddii la intifaacsanayaa xataa loogu talagalay inaan naxariista laga tegin. xadiidkaasi muslim baa soo saaray. isla xadiid kale oo iyadana shimbiraha ku saabsanaya nebigu sal lla alay wasallam si ugu naxariisan jiray, xadiidka cabdiraxmaan ibni cabdillaah aabihii buu ka warinayaa. wuxuu yidhi yani waxaan ahayn rasuulkaan la joognay sal lla alay wasallam, safar iyo socotaan ahayn, rasuulkaan la soconnay. ayib nebigu marka sal lla alay wasallam saxaabadiisii isagoo la socday wuxuu aaday xaajadiisuu aaday, dan buu u baxay, si gooniyo meel ugu baxay nebigu sal lla alay wasallam. markaasaa waxaan aragnay buu yidhi saxaabadii haddaan nahay shimbir laba ilmoodoo yaryara haysata. labadii ilmoodoo yaryarkaad baan ka qaadanay, dhal yar yaa ay meel ku haysataa, meel ay gashatay ama buul ay gashatay baan ka qaadanay. markaan kala baxnay ayaa waxaa shimbirtii waxay bilowday buu yidhi inay baalasha ay kaga balbalqsiiso oo muxuu ahay baalasha ruuxdo oo ay wareegto oo ay muxuu ahay degi weydo. markaasaa nebigu sal lla alay wasallam nebigaa yimid. nebigu marka wuu gartay shimbirtan duulduulaysay rafaahsanee garba muxuu ahaayey kolba dhinac u duulaysaa, waa gartay in wax lagu sameeyey. markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasallam man fajaca haadihi biwaladiha, war yaa argagixiyey, yaa ilmaheeda ku argagixiyo sidan u galay shimbirtan. rudduu waladaha ilayha, ilmaha u soo celiya buu nebigu sal lla alay wasallam, ilmaheeda u soo celiya. maxaa u argagixinaysaan? hooyo ilma haysata waaye, caruurteeda maxaad uga nixinaysaan, maxaad u dhibaataynaysaan, maxaa u rafaadinaysaan? soo celiya ilmaheeda buu nebigu sal lla alay wasallam. mar kale wuxuu yidhi waxaan aragnay buu yidhi, wuxuu arkay buu nebigu sal lla alay wasallam oo uu ishiisu qabatay qaryo muxuu ahaayey baashan quraanjada meel ay degan tahay, degmad ay quraanjo degan tahay oo la gubay, oo saxaabada qaar ka mida ay gubeenoo dab qabadsiiyeen, waa quraanjo. markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasallam man xaraqa haadihi, war yaa tan gubay, yaa quraanjadan yaa guboo dabka qabadsiiyey. markaasaa waxaan idhi annaga way rasuulka ilaahayo. nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasallam marka innahu laa yenbagii an yucadiba binnaari ilaa rabu nnaar, ma habboona dabka inuu wax ku ciqaabo oo ku gubo ilaa rabbigii dabkan iska lahaa mooye, dab wax laguma ciqaabo. saas daraaddeed shareecada cuquubaadkeedu ka mid ma aha in wax la gubo, noolaha in la gubo ka mid ma aha. nebigu waa diiday sal lla alay wasallam. marka quraanjadii buu nebigu u naxariisanayaa, shimbirtii buu u naxariisanayaa, xayawaanaadkii buu u naxariisanayaa, kii xoolihii la dhaqanayay buu nebigu u naxariisanayaa sal lla alay wasallam. xadiidkaasina ibn abi shayba iyo axmed yaa soo saaray. kaa hore waxaa soo saaray imaamu muslim caleyh raxmatullah ee ku saabsan shimbirta lagu toog dhisanayo. tan dambena waxaa soo saaray ibn abi shayba iyo axmed iyo abu daawuud iyo keyrkood, waana xadiis sugan waaye. mar kale nebigeennu sala allahu aleyh waali wasallam waa ka ummaddiisa baray inaan muxuu ahay noolaha muxuu ahay aan la cadaabin oo aan la rafaadin oo dhibaataynin. xadiidkii cabdillaahi bni cumar waa kii rasuulku sal lla alay wasallam dakhalat imra'atun annaara fii hiratin rabatatha, haweeney baa bisad ama mukulaal sababteed bay naar ku gashay, way xidhay, cuntadiina mayna siinin, waxay ku noolaan lahayd mayna siinin. inay bannaankeeda aaddo ooy soo qadhaabato oo ay waxay soo raadsan karto raadsatana way ka xidhay, meeshiina cunto mayna ku siinin, sidaasay ku dhimatay, naar bay u gashay buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. bukhaari iyo muslim baa soo saaray. muxuu nebigu ummaddiisa barayaa? xayawaanaadka iyo noolahaas ilaahay noolaystay in loo naxariisto oo muxuu ahay aan la cadaamin, oo aan gaaja loo dilin, oon loo dilin. bal iskaba dhaafay nebigeennu sala allahu aleyh waali wasalam eyga oo khasal xayawaanaad ka mid a, xayawaanaadka kuwa ugu liita ka mid a, ayaa nebigu sal lla alay wasalam wuxuu tilmaamay ciddii u naxariisatay inuu ilaahay janno ilaahay ku galay. xadiidka abu hurayra nebigu wuxuu leeyay sal lla alay wasalam nin baa isagoo socda baynamaa rajulun yamshi biariiq, nin baa isagoo jid socdo oo socotaa ayaa waxa weeye oon daran baa qabtay, ishtadda calayhi alcatash, oonkii baa ku daraaday, aad buu u oomay. markaasuu wuxuu yimid ceel buu ku yimid, ceelkiibuu galay, wuu ka soo cabay. markuu ceelkii ka cabo isagii uu oonkii ka baxay ayuu markaa kadib ka soo baxay ceelkii. markuu bannaanka u soo baxay wuxuu arkay ey dacasha muxuu ahay biyahan bannaanka ku daadaadsan ee ceelka bannaankiisa ku daadsaadsan, biyaha yani waxa weye qoyaankaas carabka laalaadinayo leefleefaya. yani waxa weeyaa markaasuu nebigu ninkii wuxuu yidhi walle eygan oonkii iqabtay baa haya, rafaadkii ihayey iyo dhibkii ihayey mid la mida haya buu yidhi. markaasuu ceelkii ku noqday, kabtiisa khufkeeda intuu siibay ayuu ceelkii galay, khufkiibuu biyo uga soo buuxiyey,
intuu afka ku qabtay khufku iyo buu ku jiro buu ceelkii soo fantay oo kor u soo fuulay markaasuu eygii waraabiyey fashakara allaahu lahu fagafara lahu buu nabi sal alla alay wasalam ilaahay baa uga mahad celiyey oo uga shukriyey waxa uu sameeyey waana u dembi dhaafay alla tabaaraka wa tacaala sidaas wey markaasi saxaabadu waxay yidhahdeen qisadaa markuu nebigu saxaabada u sheegay ayaa waxay o rasuulka ilaahayow wa inna lanaa fi lbahaa'imi ajran oo waxyaalahan aan hadlin iyo xayawaanaadkan aan hadalka lahayn wanaaggii ixsaanka aan u samayna ma ajir baan ka helaynaa markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam nacam fii kulli dii kabidin radbatin ajrun buu nabi sal alla alay wasalam yacni mid kastoo beer qoyan leh nafi ku jirta waaye wixii ixsaanee loo sameeya ajir baa laga helayaa buu nabi sal alla alay wasalam xadiidkaasi riwaayo kale xadiiska kagu yimid oo abu hurayra uu warinayo oo cidda eyga waraabisay ka dhigaya inay ahayd haweeney zaaniyad ah oo dumarkan jirkooda yacni kharrimay ee xumaanta galay ayay ka mid ahayd ey bay marka waraabisay ooman ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ugu dembi dhaafay marka nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam muxuu ahaaye iska dhaaf saxaabadiisa iska daa aadamaha kale iska daa xataa xayawaanaadku u naxariis badnaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saa ugu naxariisan jiray xataa wuxuu u naxariis badnaa nebigu sal alla alay wasalam yacni waxa way cadowgiisa